بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. waxaan rabnaa maanta inaan ogeysiino arrintii ku saabsaneed Gaza iyo Falastiin oo aan kaamka ku lahayn shacbiga Soomaaliyeed ay kaalmeynayeen muddo soo socday. xaaladdu markay sii adkaatay oo dadkii baahida lagu sameeyay ay gaartay heer ay dhintaan dadkii ayaa waxaan go'aansanay inaan ku darno hawshii aan hore u sii wadnay inaan furno meel loo yiraahdo madbakh ama jiko raashinka loogu karinayo dadkaas gaajaysan taas oo maanta bilaabatay sida aad ku arki doontaan sawirada aan idin soo gudbin doono. dadkaas dhibaatada haysata waxaan uga mahadcelinayaa ummadda Soomaaliyeed oo runtii markay fiirsadeen markay soo dirayaan sadaqada ay bixinayaan qaarkood ayagoo ilmeynaya oo suuraysanaya caruurta gaajada u dhimanaysa hooyo ilmaheedii dhabta ku haysa oo wax ay siisa aan lahayn. qofka saas markuu dareemo cuntada inay ka degi weysay qaarna hurdadu ay ka tagtay si loo dareensiiyo wixii ay bixiyeen inay wax ka qaban karaan ayaa waxaan ku dhawaaqaynaa kaamkaasi qaybtan oo qoodinta gaajadaasi looga jawaabo maalintii in 500 oo qoys inaan gaarsiino cunto loo kariyo qaybna aad ka noqotaan oo maanta fursad ay tahay maadaama lagu jiro sida quraanku Ilaahay uu tilmaamay oo itcaamun fi yawmin dhi masqaba waxyaabaha wanaagsan ee jannada iyo naxariista Ilaahay lagu helo ay ka mid tahay in la qoodiyo maalin gaajo saaxiib ah oo dadkaasi maanta maalin gaajo u saaxiib ay ku jiraan. barnaamijkaas oo inagu cusub oo runtii in xusuusinaya Soomaali hadaan nahay xilliyo caga bararkii la dhihi jiray oo dadku gaajo ay u dhimanayeen goboladeena qaar ka mid ah oo jikooyinkan hadaan aan furayno oo kale inaga leeno furaayay Ilaahay waa maxawil ahwaal inagi ayaa maanta waxaan nahay inaan jikooyinkii aan furno shalayna inaga ayaa leeno furaayay marka Ilaahay inaan ku mahadcelino mahadcelintan waxaa ka mid ah inaad qayb ka noqoto hawsha socota waxaan u mahadcelinaynaa qof kasta oo qayb ka arintaas iyada ah marka bishaan Ilaahay haduu yiraahdo waxaan jecelnahay inay maalin walba saa u socoto. maanta waa maalintii koowaad oo karintii la bilaabay oo la kariyay oo maanta wax aad dirteen reer Gaza qaar ka mid ah intii la gaari karay ay maanta wax idinku aad dirteen Soomaaliyeed oo jeebkiina ka soo bixiseen ay wax ku cuneen oo idin duceeyeen arintaas iyada suuraysta ajirka laga helayo iyo sida ay tahay quraankan Ilaahay wuxuu noogu tilmaamayaa qofkii qof sabab ugu noqdo inuu nooleeyo sida asoo dadku dhan nooleeyo ayuu la mid yahay wama dhaxyaaha fakaannama ahya an-nas jamiican. marka fursadaas yaan loo kala harin qof walba wixii uu ku darsan karo ha ku soo darsado. bariga hore dadka dhibaatada markay haysato intuuna social media han imaanin dadka meel fog ay dhibaato ku haysato lama arki jirin laakiin maanta adduunka ayaa wuxuu isku noqday hal qol oo kaliya xagga wixii ka dhacaya ayaa halkan ka arkaysaa. nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam ma aamana bi iman rumaynin qof ku seexday dhereg asaga uu dhergan yahay dariskiisana laga gaajaysan yahay isna uu og yahay. marka meesha hadayna haysato waxay tahay asagana uu og yahay marka inay reer Falastiin maanta gaajaysan yihiin yaan ogeyn yaan shaashadaha ka arkin dadkii oo safka raashinka intay ku jiraan dhacaaya oo dhimanaya ayaa muuqda. marka waa meel runtii aad u xanuun badan hadii laga qayb qaadan waayana waxyaabaha naarta lagu galo ayay ka mid tahay oo Ilaahay mujrimiinta naarta galay markuu la weydiinayo maxaa naarta idin soo galiyay waxyaabaha naarta galiyay waxaa ka mid ahaa ma salakakum fi saqar qaalu lam nakum min al-musallin wa lam nakun nud'imu al-miskiin. marka Soomaaliyeed tukashada iyo masaajidda inoo buuxaan oo taas alxamdulillah tan hore hadaan ka fakano midan dambe ayaa hadana inoo taagan oo lam nakun nud'imu al-miskiin masaakiinta ma aanan qoodin jirin hadii arintu ay imaato hadii xaaladan oo kale isku fiirsado cala Allah ayaa ka dhacaysa. marka laga faa'iideysto fursadan lambarada lagu soo hagaajinayo sadaqadana shaashada ayay ku qoran yihiin. sawiradii laga soo qaaday maanta oo maalintii koowaad oo kaamkaasi jikada laga furay ee raashinka lagu karinayana ayadana sawiradeeda ayaad arki doontaan maalmaha soo socdana saas oo kale ayaan la soo wadaagaynaa. marka fursadaha laga faa'iideysto qof walbana wuxuu ku darsan karaa ku darsado. waxaadna ogaataan maalintaasi waxaa la xisaabiyay qofkii hadii si loo fiiriyo halkan way ku yartahay oo $10 ayaa qofkii raashinkaas la isku daraayo ee loo karinayo $10 ayaa lagu siinayaa. marka hadii 500 oo qof oo min $10 ah maalintii waa $5,000 marka bishii hadii la yiraahdana waa $150,000 inta waxaa sii dheer kafaalaadkii agoontii aan horay u haynay ee muddada 14 bilood ah aan sii jirnay kafaalada caruurtii waalidiintooda la laayay ee kaligood soo haray dadkii kaamka ku jiray taasna halkeeda ka sii socotaa. midan ayaa hadda inagu cusub oo ah waxa inaga keenaya markaan aragnay muuqaalada meesha yaala dadkeenana say qiiro ugu hayaan arintaas iyada oo xagee loo maraa ay yiraahdeen
meeshii loo mari lahaa waa taas waan idin tusinay adduunku maanta hal qol ayuu isku noqday farsamada wax lasu gaarsiiyana waa ay badan tahay dadka hawshaas inoo haayo ee reer Falastiinna waa ay mahadsan yihiin innagana waxaa laga rabaa inaan kharashkii keeno ayaguna waxay sameynayaan dadkaas intii ay badbaadin karaan inay badbaadiyaan ay wax u kariyaan inagoo iskaashanay dhammaanteed waxaan ula jeednaa ilaahay dartii subxaanahu watacaala ilaahayna kaalmeeyo saan u kaalmaynayno kale inaga duruufteena Soomaaliyeed ayna haysatana u kaalmaynta walaalahaas aan u kaalmaynayno ilaahay arrinteena inoogu toosiyo inta xanuunsan Allah ku caafiyo inta duruuf ay meel kaga dhagan tahay markay ka fujiyaan reer Falastiin ayagana Allah ka fujiyo waa mahadsantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh